waayahay bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiy bacda arday soo dhawaada insha allah. maanta waxaan qaadanaynaa hadduu ali yiraahdo sida session variable usernameka loogu sameeyo. soo marka hadduusan usernamekaas uu kusoo gelin si loogu diido inuu systemka booqdo. tusaale ahaan oo kale hadda systemkeen hadda waa kanaa dabcan hadda login pageka inta noo saaran oo username iyo password meel laga soo geliyo hase ahaatee systemka pagekiisa hadii la booqdo qofka asoodan gelin oo caadi u gudbaa macnaa. tusaale ahaan haddoo kale haddaan dhaho ku qoro kale dashboard.php oo kale haddaan dhaho isagoonan gelin oo maxay ahayd login ku sameynin oo gudba oo systemka arkaa, taasna security ahaan ma fiicna macnaha. waxaa la rabaa qofka hadduusan usernamekiisa passwordkiisa xitaa uu ku gelin in la soo celiyo oo login pageka lagu soo celiyo macnaha, oo loo diido in uu systemka gudaha u galo. waxaasna waxaa naga caawinayo in aan conditionkaas aan ku sameyn waxaa naga caawinayo waxa loo yaqaano php session variable. session variable waxa waa super global variable waaye, kaas oo macnaha daatada ku xareynayo browserka, macnaha xogta wuxuu ku xareynayo browserka. dabcan session variable iyo variableka caadiga waxay ku kala duwan yihiin. variableka caadiga ah xogta wuxuu ku xareynayaa computerka ku xareynaa, macnaha computerka ku shubaa. hase ahaatee session variable asiga xogta wuxuu ku xareynaa browserka. soo marka inta uu browserkaas furan yahay ay xogtaas ay shaqeynayaan macnaha. mar hadduu userka browserkaas uu iska xiro xogtaasna ma shaqeynayso. marka insha allah sida oo loogu diido aan baranayna insha allah. waxaan tegaynaa login pagekaan tegaynaa oo ah index.php deena. marka login pagekeena aan tagno kadib koraan waxaan ku qoraynaa code. waxaan ka bilaabeynaa horta codekeena session start aan ka bilaabeynaa. sessionka noo bilaaba leenahay kana waa noo qoran yahay balse waa qoraas u fahamtiin. waxaa leeyahay session start yaa leeyahay. marka session start dhahdid sessionka noo bilaab aad dhahdid kadib waxaa imaanaysaa hoostana imaanaysaa intoo ka dhaca soomaha gelitaanka select all from users where username uu limid yahay user and password uu limid yahay. if mysql name rows hadduu ka yar yahay dhahay hal username password mismatch tan errorka ee tilmaamaya macnaha. ls amanaha echo waxaa isoo dawacda dhahda login success login for header location dashboard.php gay oo redirect. marka inta redirectigaan la sameynin ayaa waxaan sameynaa session variable aan sameynaa. intaan ku qoraa marka codekeyga session variable waxaan leeyahay variable maxaa lagu abuuray variable waxaa lagu abuuraa $_ sessionkaas marka sidaan hadda waan ku abuuray macnaha $_ sessionka waxaa marka username waa macnaha okay username usernameka marka waxa waaye midka oo maxay ahayd oo waa kana macnaha waa midkan oo column-kan database ku jiro waa usernameka waa. soo marka waxaan dhahan marka duu sessionka marka browserka xogta noo hayo haduu yahay username yahay wuxuu la mid yahay $username uu la mid yahay intaas leeyahay macnaha okay $_ username wuxuu la mid yahay $username intaas oo la mid yahay. login page intaas u sheegay. hadda aan save dhaho aan ku laabto login pagekii aan ku laabto wili action ma dhacayo macnaha okay. hadda dashboardka aan dhaho wili action ma dhacayo. hadda waxaan sameynaa in aan u diido qofka aanan soo gelin oo username iyo password aan ku soo gelin inuusan dashboardka aadin. haddaan ka dhigaa insha allah. waxaan tegaynaa pageka dashboardkaan tegaynaa. pageka dashboardka markaan tagno kadib meeshaan koraa waxaan ku qoraa session start. macnaha waxaan rabaa yaa jamaaca session variableka mar walba pageka sessionka u isticmaalaysid waxaa laga rabaa inaad session start inaad bilaada laga rabaa macnaha. soo marka wiliba waxaa la rabaa session start inay ku qornaato meesha ugu sareyso pagekaada ama codekaada meesha ugu koreyso inay ku qoranto la rabaa si oo scriptiga dhan ay u qaadato macnaha. marka waxaan sessionka hadda noo bilaaba dhahna okay. sessionka hadda noo bilaaba dhahni session start noo bilaab. marka
koodka marka meeshaan ku qoraa waxaan furanaa php aan furanaa php markaan furto hoos soo deganaa kadib marka meeshaan waxaa leeyahay marka if ay condition meeshaas ka bilaaba if waxaa leeyahay qosaan furaa if not php calaamadaas not waa soo maahan diidin waa waxaan leeyahay if not $_ session if not $_ session username if not $_ session username macnaha hadduu macnaha username session username ka hadduu ahaan session username kan wuxuu kasoo akhrinaa meeshaan uu kasoo akhrinaa oo page kan uu kasoo akhrinaa intan waxaan dhahay session starter dhahay meeshaan session starter marka waxaan dhahay marka hadduusan ahaan session username hadduusan ahaan if not $_ session username hadduusan ahaan waxaa leh header redirect ku samee macnaha header waxaa leh location index.php ku samee leh waayahay sorry meesha index ahawte waa intaas macnaha waxaana macnaha hadduusan session username hadduusan ahaan qofkan soo gal hadduusan ahaan locationka waxaa geysaa index.php soo marka hadda intaa marka wuxuu sameynaa redirect iyo sameynaa marka oo index ku geynaa aan sameyn insha Allah aan ku laabano website-kan aan ku laabano new tab aan dhahno waa mar walba isbedel sameey waxaan jeclahay inaan new tab dhaho waxaa leeyahay marka localhost/login system intaas aan leeyahay marka intaas marka intan aan dhaho waa kana hadda systemku isoo ka mogta marka waxa isku dayaa in aan access gareeyo in aan gudaha u gal dashboard ah waxaan rabaa inuu isoo celiyo fiiriyaha /dashboard waxaan leeyahay .php aan leeyahay intaas leeyahay waa kaas ujeedadu way ii diiday macnaha indexka uu soo celiyo sababta uu diiday waxay tahay waxaan dhahay macnaha hadduusan ahayn session username hadduusan ahayn location index.php marka waxaan gudaha u galaa marka kana marka hadda marka hadii aan gudaha hadaan u gal marka inta waxaan gelinaa username ka gelinaa intan waxaan gelinaa password-kayga hadda login aan dhaho oo dashboard-ka u geeyo marka waa kana hadda dashboard-ka marka meeshaan aan rabaa marka in aan user magaciisa ku sheego inta marka waxaan leeyahay welcome wax soo kale username waxaan tagaa dashboard.php dan tagaa meeshaan marka listiga ay ku qoran tahay okay meeshaan dashboard.php meeshaan list ay ku qoran tahay waxaan leeyahay h3 oo kale aan leeyahay h3 markaan dhaho marka inta waxaan leeyahay marka welcome markaan dhaho waxaan furaa small html5 tag waa afartii dhigeyso marka meeshaan marka waxaan gelinaa code session username soo akhrinaa si hadhowda oo welcome idho marka waxaan leeyahay tag php aan furanaa inta tag php aan ka xiraa marka waxaan leeyahay echo iso daawac $_ username username hadda kan marka muxuu sameynaa systemku waxaa laga yaabaa 10 username 20 users in isticmaalaan marka mar walba username-ka qofku ku galo oo meesha oo welcome leeyahay hadda marka aan save aan dhaho aan ku laabto code-kayga aan refresh aan dhaho waa kana ujeedo welcome ismaan waxa user-ka marka u kala baxsanaad xoogaa waxaan sameynaa style waxaan ka dhigaa u kala baxsanaato colorka waxaan ka dhigaa dark green cagaaran ka dhigaa soo marka hadda u laabto aan refresh aan dhaho welcome ismaan waa kana username-kiina waa macnaha username-ka ismaan waaye marka xoogaa jif aan ka dhigaa font style aan leeyahay italic hadda ku laabto jif farqiga noqonaya soo marka waa kana welcome ismaan marka meesha mar walba user-ka lagu galo oo soo bandhiga macnaha marka waxaan kaloo rabaa intan inaan ku darsado logout inaan ku darsado aan fahmno sida logout loo sameeyo waxaan laabanaa dashboard-ka u laabanaa sidoo kale meeshaan u dambeyso inta ul ka xirin list kala soo koobiyeysanaa meel cusub imaana basti aan leeyahay meeshaan marka waxaan leeyahay inta waxaan ku qoraa marka
waxaan ku qoraa log out, waxaa leeyahay log out.php. intan waxaan leeyahay meeshaan waxaan ku qoraa log out, intan waxaan ku qoraa log out, ku qoraa soo marka log out marka ku qoro, marka hadda refresh aan dhaho, log out meeshaan ii soo gelaysaa macnaha, log out meeshaan ii soo gelaysaa. waxaan sameynaa marka waxaan ka dhigaa marka haddii oo pagekan click la siiyo in oo sessionka isxiro macnaha, oo sessionka isxiro oo log out oo dhaco. waxaan tagaa waxaan abuuranaa page la dhaho log out.php abuuranaa. okay, save file, save as dheh, page kasi abuur. okay, waxaan dhahdaa log out.php. okay, log out.php marka pagekaas abuurto kadib php taggeeda furaa. marka php taggeed markaa furo, marka waxaan leeyahay session start ayaan leeyahay. horta ku sessionka bilow, session start marka kadib waxaan leeyahay session unset macnaha. okay, session unset, sessionka ha fadhiisinina leh unset asasi. kadibna waxaan leeyahay session destroy. session destroy muxuu sameynaa, sessionku burburinaa macnaha la soo galay. waa kana session destroy, spelling error inoo dhacay. session waa kana session destroy aa leeyahay semicolon, session destroy semicolon. kadib waxaa leeyahay marka header, waxaa leeyahay location index.php. okay, koodka hadda marka waa kana, koodka hadda wuxuu sameynaa session variable ku burburina macnaha. session variable hor maxaa uu soo sheegnay, session variable waxaa la dhahaa macnaha variable oo xogta ku hayna browser. horta yaa jamaaca sida bada idin xasuustay variable maxaa la dhahaa, variable waxaa la dhahaa meel lagu xareysanayo, xog lagu xareysanayo waxaa loo yaqaanaa variable. so marka session variable browserka ayuu xogtaada ku haynaa, marka browserka xogtaada ku haynaa. marka inta uu userka browserkaas u furan yahay xogtaas waa la isticmaali karaa. marka waxaa leeyahay marka horta ii bilaaba la kadib waxaa leeyahay unset ale sessionka waxaa siinayna le kadib waxaa leeyahay sessionka destroy ku sameey. destroy marka ku sameey kadib waxaa leeyahay header location index.php. so marka inta marka wuxuu sameynaa sessionku ka baxa macnaha. hadda aan refresh aan dhaho, waa kana hadda refresh aan dhaho, waa kana hadda log out dhaho, destroy gaas uu sameynaa macnaha, waa kaas index kaas uu geeyo. okay, hadda marka haddaan dhaho dashboard.php hadda access garay sessionku uu dhumiyay macnaha. okay, wuu isoo celinaa soo ma jeed sessionku uu dhumiyay. haddaa username-ka iyo password-kayga ku galana ismaan, password-kaygana aan galo, aan gudaha u galo. waa kana wuxuu leeyahay welcome ismaan. meesha marka mar walba username-ka oo soo akhrisanaa oo echodan aanaga saacidaysa macnaha oo dhahnay. waa kana aan dhahnay echo $_session username. intan waxaan sameynay log out. marka cashirkeeni ahaa sida session variable oo login iyo log out lagu sameeyo meeshaas ayaan ku keenaynaa.